warar madax bannaan oo la helayo ayaa sheegaya in hay'adda nabadgudda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay caawa ka soo saartay halkii ku xirnaa Muqtaar Rawi Cali oo Mansuur oo dhawaan hay'adda nabadgudda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada Itoobiya qaybta ka howlgalka midowga Afrika AMISOM ay sanadkii hore ay ka soo xireen magaalada Baydhabo caasimada ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed balse warar madax bannaan oo helayahay waxay sheegayaan in su'aal dheeraad ah la weydiin doono Muqtaar Rawi Cali oo Mansuur ilaa hadda si rasmi looma ogaa halka lagu hayo Muqtaar Rawi Cali oo Mansuur iyo in la xiri doono iyo sidoo kale in dib xoriyadiisa loo siin doono sanadkii hore ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika AMISOM qaybta Itoobiya iyo ciidamo booliis oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay ka soo xireen Muqtaar Rawi Cali oo Mansuur magaalada Baydhabo caasimada ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya halkaas oo musharax madaxweyne uu ahaa warkaas wixii ku soo kordha waxaad kala socon kartaan YouTube-ka wararka ee xulashada wararka haddii aad ku cusubtahay subscribe si mar walba ula socoto wararka iyo dhacdooyinka caalamka ka dhaca kuwooda ugu xiisaha badan